maanta oo talaado ah bishan ay tahay 2 taariikhda 4 sanada 2020 waxa weli inoo socda aan ku jirnaa barnaamijkeeni koorsaha luqadda Ingiriiska oo aan ka baranaynay Jamaalka maanta oo ah maalin talaado ah waxaan qaadanaynaa waa tenniskii toddobaad waxa la yiraahdaa past perfect tennis past perfect tennis. What is past perfect tennis? It is used for an action that happened before another action in the past. What tennis كتوات وحال هذا past perfect tennis goor تكتها أو دماتي past حلنا وقتي perfect واحد دماتي tennis ما وقت أما goor تكتها أو دماتي. It is used for وحلو الإكسرائيلية an action fall that happened كسر دعي وحر دعي before كهر another action fall كله هرتي صدعي in the past أسوأ متجي formation كده مرخاء ده وسubjective وسميها بلاس أولو دري had I had we had he had she had طبعا حق هذا كم had بلاس أولو دري past participle of the verb past participle of the verb وحلا waa retarded lunch gotten forgotten forgiven brought waxaasoo kale waxa leedahay bought waxaas leedahay waa past perfect waa past participle of the verb plus oo lagu daray object dhibanaha example tusaale statement soo ah waa jumla caadi ah no negative no ku jirada waa mid aan diidman ahayn oo su'aalan ahayn wuxuu yiri I had returned waxa ku soo laabtay to home guriga before kahor I read the book inta akhrin kahor buuga ayaan guriga ku soo laabtay we had waan qadaynay when she arrived waxaan qadaynay markay timid ayaan qadaynay we had hadda aragto laba had ama laba half waxa leedahay waa kan u horeeya waa awsal verb ama waxa leedahay helping verb ficil caawiye hadka dambe waa cunaywa marka waxaan noqonay we had waan qadaynay we had lunch waan qadaynay when markii she arrived markay timid ayaan u qadaynay question form asoo ah qaabka su'aasha hada marso waxay ahayd jumlada I had returned to home before I read the book hada marso had I returned ma ku soo laabtay to home guriga before kahor I read the book intaan akhrin kahor guriga ma ku soo laabtay aniga question mark calaamad soo dambayso had we had lunch ma qadaynay when she arrived markay timaaday miyaan qadaynay على سؤال negative form كيه وديدمدا قيحان أم وديدمدا قابك ديدمدا I had not returned ما على كسلامن to home غريا before car I read إنت نقرين the book إنت نقرين كار ما على كسلامن غريا we had not had lunch ما على قدين أنا when she arrived مركتمي ما على قدين question with negative form وقاب ديدما أو هذا السؤال قاب سؤال شديد ماذا؟ هذا أنت I returned ميان كسلامتي ميان كسلام توم غريا before I read the book أنت آخرين كور ميان غري كسلام أنت آخرين كور بوكا هذا أنت we had lunch ميان خدين when she arrived مركي تميت ميان خدين بسم الله الرحمن الرحيم هل كاس الموضوع مال التنس كي مانت وثلاثة بيشر أنتهي أفرته وبيش اللبات سنة لبكون لبات تنس كالك صورة ما بحرس كل دونا إن شاء الله تنس كسيدة إن شاء الله أو أصلا باست برفكت كتير تنس كورسين كإنجليش كأصلا كله سكندري أين أما سكشن أو سكندري أين وحن بلا دونا خميسة تنس كي أيام نص أصلا تنس أفكم شيء شغاتك ما كان كبحنا تنس كنوع الآن ديجنا سنبلان ديجا دونا laba sanbalan qaadan doona markaas waxaan sii marayna hadana paragraph kan galeyna iyo qaabaha kale English u daadagayna marka la socdo